haddii gugi kuu kordhaa gabow mooyee ku tarin garaad iyo waaye arag ileen wax ma dhaantid geed abwaan hore ayaa yiri guga qofka markuu da'diisa ziyaado waxa loo baahan yahay in ay ziyaadiso da'diisa markaasi aqligiisa in ay ziyaadiso cilmigiisa laakiin haddii guga uu ku kordho sanadka uu ku kordho oo gabow uu mooyee wax kale aysan ku kordhin yani waxa ula jeeda ama abwaanku ula jeeda haddii qofka asigoo da' jiray sanad kale ugu darsanto sanadkii kale markuu ku darsadana cilmi uusan u kordhin sidoo kalena uusan u kordhin garaad iyo aqli waxa uu la mid noqonaya markaasi sida abwaanku hadalka u dhigay sida geedka kale geedka waa uu u kordhaa zamanka ama waqtiga mar walba waqtiga iyo zamanka u kordhana aqli kuma soo siyaado cilmina kuma soo siyaado da' baa ku soo siyaada ilaa marka dambe uu gaaro xilliga geedka uu qalali lahaa ee waqtigiisa uu dhamaan lahaa mithaalkaas aad ayuu ii cajabiyay dhalinyaradana waxa ay mar walba markaas u baahan yihiin in gabayada noocaas oo kala ah qeybaha yaryar ee noocaas oo kala ah loo soo qaato ee lagu baraarujiyo si ay ugu markaas intibaahan ama ay u xasuustaan in da'da ku socotahay muhiim ay tahay sida ay da'da ugu socoto kale in cilmi aqli iyo garaadba ay kororsadaan dhalinyaro guuga nagu kordhaaba waa in garaad iyo cilmi uu inagu kordhiyaa intaas waa iga talo aniguna idinka ayaan idinka mid ahay